kuwan waa meelaha ugu cabsida badan ee loo dalxiis tago ee daafaha adduunka booqo hadda ku dhacdihe. Assalaamu calaykum asxaabay, ku soo dhawaada muuqaalkeena YouTube maanta iyo muuqaal cusub. maxaan sugaynaahe aan u gudagalno muuqaalkeena maanta. Let's go. wali ma ku fikirtay inaad inta aad fuusho dhismayaasha ugu dhaadheer ee magaalada New York oo waliba 1100 feet ka sareeya oogada dhulka, oo inta aad qalabkaaga qaadatid aad tigti saqafka u sareeya aad ba isii deysidba, mise wali waxaad doonaysaa inaad aragto isla dhismayaasha ugu dhaadheer ee magaalada New York, balse waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaysan waxba idin dhexeen adiga dhulka. haddaba haddii aadan ka baqin meelaha dhaadheer, malaha meeshan waa meel adiga kugu habboon. goobtan lagu lulayo ee ku taala dalka China waa meel cajiib ah, waliba adigoo soo fiirinaya jooga hoose ee dhulka, adigoo kolba tegaya buurahan, malaha qaylada ka dhamaan lahayd. Allah dhismayaasha jooga sare ee loo yaqaan Sky Park ee koonfurta galbeed ee dalka China, kuwaas oo ah meel lagu socdo balse kala go'an, waxaana ku haya oo kaliya xarig, balse hal tilaabo haddaad seegto waxaad soo afjari kartaa buuga noloshaada. ajaayib sheekhow, waxay dhahan mar uun waa inaad barataa sida loo wado biskuleetiga, weligaa ma ilaawisid. malaha waa isku mid biskuleetiga lagu wado hawada iyo kan dhulka. goobtan waxay ku taalaa dalka Mexico, waxaadna ku wadaysaa biskuleetiga xariiq duuban, halka dhanka kale aad ku raaxaysanayso muuqaalada hoose ee dhulka. The Crocosaurus Coffee waa goob ku taala waqooyiga Australia. waxay dalxiisayaashu helayaan fursad ay kula kulmayaan yaxaas weyn iyagoona u dhowaanaya. nasiib wanaag maahan qadadii uu ku qadayn lahaa. suuqan wuxuu ku yaalaa dalka Thailand, waana suuq ku yaala wadada tareenka. mar kasta uu soo dhawaado tareenku, qof kasta wuxuu haystaa ilbiriqsiyo wadada ku baneynayo. Russia South Sky Park waa meel booditaan oo innaban caadi ahayn, cajiib iga dheh. bood oo isdabagedi ama iska tur meeshan 680 feet ah, kaliya waa inaad ka hubisaa inuu xarig ku dhuujisan yahay. waxay ku taalaa cirifka biyo dhaca harada Victoria ee dalka Zambia. waa meel biyuhu si degan u qulqulaan, ahna meel degan, laakiin maaha meel ugu dabaasho, balse hal khalad oo aad gashid ayaa soo afjaraya noloshaada. qof kasta wuxuu og yahay inaysan jirin meel lagu cunteeyo meel ka wanaagsan goobtan. maqaaxidaana waa goob jawi deganaansho leh oo waxaad ku raaxaysanaysaa adigoo cunteynaya jawiga hawada sare. waxay ku taalaa keymaha hoose ee waddanka Portugal. meeshan cajiibkaahi aadna u malaysidba meesha laga galo dhexbartanka dhulka, waa meel ay adag tahay inaad isha ka leexisid. ajaayib sheekhow. dadka caadiga ahi waxay raacaan wiish markay hoos u deganayaan, gaar ahaan dhismayaasha aadka u dhaadheer. balse dhismahan aadka u dheer ku yaala Dubai, waxaad raaci kartaa qaybta muraayadan inta aad raaci lahayd wiish, walibana waa 53 biyaano kaliya adigoo isticmaalaya shay khafiifa. shaygaas iyo dhulka waxa idin dhexeeya 720 feet. malaha inta aad sii socotid wadna garaac badan uu sameynaya wadnaha. waqtiga dambe aad joogtid gobolka Guangdong ee dalka China, soo boqo gacantan lagu magacaabo Buddha's Hand, dhismo aad u xajmi weyn oo aad ka arki kartid Damig Kulan Canyon. wala waa meel cajiiba. wow. dhismayaasha dhaadheer ee lagu magacaabo Flying Keys ee ku yaala dalka China wuxuu ka kooban yahay 2 taalo oo aad u waaweyn, kuwaas isku qolocsan si ay u wadaagaan shumis. ababay cajiib iga dheh. laakiin dhibka kaliya ka taagan raacidooda ayaa ah inaysan ka jirin ammaan isku haleyn karo, sidoo kale inaysan ka jirin suma la xiranayo, kaliya xindaabka ku wareegsan mooyaane, kaasoo ka ilaalinaya inaad dhacdid. wiifowga carruurta lagu yaqaanay sax soo maahan. haddaba ninkan ayaa fuulay wiifowgan weliba buuraha lagu magacaabo Dolomite ee dhaca dalka Talyaaniga. ababay maxaa cabaad ka baxaya. wuxuu ku yaalaa saxaraha dhaca dalka Turkmenistan, Darfasa Gas Crater. dadka sidoo kale waxay u yaqaanaan albaabka cadaabta. wuxuu gubanayay in ka badan 50 sano iyadoona heerkulku gaaro 10 degree Celsius. jimicsiga biskuleetigan waa mid waali ah, waxaana laga ciyaaraa dalka Jarmalka. waxaana laga doonayaa inaad hal wareeg oo dhameystiran inaad wareejisid, taasoo aad ku sameyn karto xawaare aad u sareeya. xawaaraha haddaad bedsidna waa dawaqaysaa walaalka. halkan wax ma ka dhisan lahayd. mararka qaar markaad daashid xilliga aad ku guda jirtid buurfuulidda, waxaad u baahan tahay inaad nasatid. haddaba halkan ku dhiiran lahayd inaad ku nasato mayay aniga walaalka. bal maxaad dareemi lahayd haddii lagu tuuri lahaa minjniiqan ama catapult ee xilliyada hore loo isticmaali jiray xilliyada dagaalka? wadna garaac badan waa dareemi lahayd, laakiin walaalka baarshud ayaa haysataa. wiifowgan ku yaala dalka China waxaan dhihi karaa waa kan ugu weyn, sidoo kalena kan ugu khatarsan, iyadoona qofku uu xiran yahay sun celiniya. waxaa sidii falaarta lagu gamayaa masaafo dhulka u jirta 2200 feet. Bye, have a great time. in lagu dul socdo dhismayaasha ugu dhaadheer ee Bangkok waa mid lagu tijaabinayo geesinimadiisa qof walba oo sheegta inuusan ka baqin meelaha dhaadheer. ogow waxaa lagu dul soconaya masaafo ka sareysa magaalada Bangkok 1030 feet ee dalka Thailand. tani waa baraag dabaal oo aad u qurux badan. The Edge of Bali kaliya ma lahan darbiye ka samaysan muraayado aad ka arki karto bilicda dhulka, ee sidoo kale waxay leedahay sagaxad muraayado ka samaysan. waxaad moodaysaaba inaad ku dabaalanaysa cirka.
waddada 622 waa mid ka mid ah waddooyinka ugu khatarta badan adduunka iyadoona ka hooseysa jooga badda albaabka hoose bal ka waran haddii lagu sheego in albaabka hoose aad ku taagan tahay hoos loo furiyo welibana lagu sii tirinayo tiro labadiinana hal mar boodaan cajaa'ib sheekhow waaba argagaxe allah kani waa minjiniiqa ugu weyn ee bini aadam u sameeyay bal qiyaas adigoo lagu tuuray adoo dul maraya dooxada Nevis ee New Zealand adigoo gaaray meel 60 mayl saacadii loo soconayo kaliya ay kugu qaadatay hal daqiiqo iyo bar waaba dhamaatayba intaada ogaanba allah waa iska sidaan marka aad baqayso balse laga tuuro 154 feet meel ah waxaana lagu magacaabaa Skyback Sentosa ee dalka Singapore haddii aad adigu ka baqayso inaad hoos aado saaxiibada bedelkeeda way ku faraxsan yihiin ku tuuraan cajaa'ib sheekhow ma jirto mawjado iyo wax dhibaato ah xeebaha ciidda ee Donis ee dalka Brazil Treco Acora waxay dhiseen meel biyo ka soo daadegayaan halkaas oo aad ka soo taraarixinayso adiga ku socdo xawaare aad u sareeya tiyub raacida waxaa loo dhisay markii hore in lagu qabto Olombikada ski jumpiska ee boodida ee magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah ee Mareykanka waxaana loo bedelay goob tiyub raacis ah kaas oo saacad jari kara 50 mayl baraagta luxushada ee China waa imtixaan lagu ogaanayo isku dheelitirnaantaada iyo firfircoonidaada kuwaaba ruuxaya buuntada halka kuwa kalena u ordiyaan geesba gees si ay u joogaan kor haddii aad xakameyn weydo isku dheelitirnaantaada baraagta ayaad ku dabaalanaysaa walaalka haddii aad jeceshahay inaad raacdid qalabkan lagu dul soconayo aanan sugi karin xagaaga haddaba waxaa ka helaysa dalka Romania waana kan ugu fiican oo xitaa wuxuu leeyahay bareeg aad ku qaboojinaysid xilligaad doontid dalka China waxa ku yaala buunto muraayado ka samaysan marka aad ku dul soconaysidna aad moodaysidba inay jababayaan balse ay tahay HD screens lagu xiray una dheer yihiin codadka jabida dhalooyinka kan baraanki way dhaaftay walaalka maraaci lahayd garaangartan aad ku weyn ee lagu magacaabo Ferris wheel waa meelaha aadka loogu xiisayo xamaasadda badan yahay caalamka meeshan waxaan dhigi karaa waa meelaha ugu wanaagsan ee biyaha la iska soo taraarixiyo waaba duulaysaay allah ya aamintan ma gafsid walaalka waxaadna ku soconaysaa xawaare aad ku qalmarbi kartid kor intaadan biyaha ku dhicin malaha haddii wax ka khaldamaana biyaha dhub ku dhahaysaa cajaa'ib sheekhow waddada qaasaroobaadka ee dalka El Salvador waa mid ka mid ah waddooyinka midabeysan ee la iska soo taraarixiyo ee ugu fiican adduunka inkastoo uu baraf fadhiyo haddana waddadan waa mid la iska soo taraarixiyo gudaha dalka Russia waana waddo aad u wanaagsan marka ay timaado in la iska soo taraarixiyo buuraha barafka ahi marka calaamadaha digniinta ay ku sheegaan in laga yaabo in qoyaan ku soo gaaraan malaha kafta ma ahayn allah